والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان مدنك iyo marti sharafta qiimaha badan ee halkan isugu timi ay inoogu mudan yihiin xubnaha golaha wasiirada iyo xubnaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, barasaabka iyo duqa magaalada, ardayda qalin jabisay, macallimiinta, maamulkooda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan isleeyahay in badanna waynu fadhiinay, inkastoo noloshuba dulqaad u baahan tahay. waa soo ururinaynaa, madaxdeennina waa inoo hadhay. waxaan halkan ka bogaadinayaa oo ka hambalyeynayaa ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa Farca degmada Caynaba, madaxda iyo macallimiinta jaamacadda Alfa heer gobol iyo heer degmada. dhammaantiinba waxaan leenahay hambalyo, ilaahay cilmiga aad barateen ha idinku anfaco, kuwii halkaa ka sii socdana noqda. taa intaasaan ka leeyahay. aqoontu waa waxa ummaduhu ku kala hormaraan. bini aadanka dunidan maanta cadceeddu ugu soo baxdo 7 bilyan iyo barhka ah ilaa iyo intii nebi aadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray, siduu u kala aqoon badnaa unbuu kala hormari jiray. xataa siduu u kala iimaan badan yahay ilaahay sunnaha noloshan kama dhigin siduu u kala iimaan badan yahay inuu kala sarreeyo. siduu u kala aqoon badan yahay ayuu kala sarreeyaa. dunidan marbaa maanta muslimku hogaaminay 5 qarni 7 qarni in ku dhow qarnigii 7aad ilaa iyo kii 15aad aqoonta dunida caalamka islaamka hogaaminayay. sababtuna waxay ahayd jaamacadaha ugu horreeyay dunidana iyagaa sameeyey. jaamacadda alqurayniya u horreysay 850 baa la sameeyey. ashar baa ku xigtay. dunida reer galbeedku jaamacadii ugu horreeyay 1100 bay sameeyeen. aqoontaasi ku hogaaminay. wiilasha Yurub ku dhashay waxa loo soo diri jiray caalamka islaamka ee iminka la yiraahdo aqoontii gabowday. waxaas bini'aadamku aqoon buu ku kala hormaray. yuhuudda oo 15 milyan 0.2 ah oo Soomaalida la mid ah, dadka ku nool Soomaaliya iyo Somaliland la u dhigmaa, waa kuwa ka dhigay saameyntooda 2%. 950 qof baa Nobel Prize-ka dunida la siiyay ilaa 1900 markii la bilaabay. 200 iyo something baa yuhuuda. weliba fakultiyada science-ka, chemistry-ga, physics-ka iyo medicine-ka iyaga ugu badan. aqoon baa halkaa gaarsiisay. Taiwan waa dal aan la aqoonsanayn, halkan laga xusay. dowladda ay caawinaysaa. waxay dhaqaalaha dulka 196 dowladood ee dunida caalamka la aqoonsan yahay. waa dalka 22aad ee GDP-ga dunida lama aqoonsana. aqoon iyo warshaday waxa ku keenay. waxaynu u baahannahay inaynu aqoon soo saaro. ninkii madoobaay halyeyga ahaa Nelson Mandela ayaa dadka madow isagoo la hadlaya oo dabaqad aad u liidata 94 markuu madaxweynaha noqday ayuu si weyn u la hadlayay, hoosna uu la faqay. Education is the most powerful weapon which you can use the will. ورقونت وواحد دتك بنادم كبدله بيقول واحد نك عادين وقصر رأيا وشراء أولي بيراء وقاطعين إنه حافظها الجتة وقال له واحد من واقون ورقون برتويل ما أنت اسبدل ما كنا عيب مجتمع ساوث أفريقيا ساينتيسيا كصوب حي أقولي هنا كصوب حي ومدنا ومدي لهاي وحو أبوري إني أكوا كلا كسر هي نشلو ومدوا ولما سؤال واحد تلح ولما شيل كيس دكتور ayaa lagu qalaa. waxaynu u baahnaa aqoonta xoojino Soomaaliland lafteedu waxa ay ku kala sareysay bariga galbeed kala hormariyay maaha muxuu ahaayay hooda iyo nasiibka ka soo dhacday. laakiin gobolada bariguna markaynu dalka ku soo noqonay qalin bay qaateen aqoon bay u dhaqaaqeen. in gobolada bariguna amni darro dowladnimadii oo soo gaarin ba waxa keentay amni darro iyo qori badan la sito. waa dad walaala isku jiinaysa ummadu. waxaan leeyahay aqoonta aan xoojino
وأن بقادينيا محوها قويها هذا جامعة أقوانتي في دنيا وبقادينيا آد بعد ما سنتهين هل كان ما هم هذا السياسات هذا لنا كأولنا إنه خليف يعقل كهالكن هذا الكتورين وحلا يجورتيده يجورتيده إنه مسكو أورندونا هذا لا السياسة إنه مسكو تورينه وأنا صح يا قرية وخليف شيء ما هي قرية حبده كده عيسى كي سياسة دوجة تانا وضد كانوا صح يا خليف سحبوا هاي وحن رنتي بقادية أنا ما ليش كفاية سنة وحي الدولة قبتين ونأكسن وإن لقروا له بقاديو برنامج كير حليسيقو خاص بودع حكت أنا نوعينه وكو بقادية إلى وزارة الدجاج يحكومته يبرز سابقة وهل كان إسقنا أمان لوجو سوت شيء قف كل حلقة وهو حيوان معلمه وامتحان الحلقة تاريخهم بكلة تجية برساب كستو هالك صومرة يطلع قيمة كستو صومرة تاريخ بكلة تجية هذا الله في عنبو علي سعيد رجال لكن كيلو دردارنا أو ولي بكوس أبصن تاريخ عصب إذا أنت أضاف مايو وحنونا لا هاي حكومة يلا حقوله قف كيدون تاني هالك نصوم قعوده تذكر عينوا دولة مويديان ونظام كدولة بشدو عدي لوك أنت موين يقبشها مسؤول كيا وكينا حلبة لقدون عدالة سكوب طرقات هل كان حلقة بدلين غير وضله تليا قيبت عسبو حلو شيء بشدو غير عينمو حباريو إنكار كما يدبطورين كان لقى بدلي ولن أوضل الكيمي وتصالي isagoo oo gobolkan u dhasho deegaankana ma hadee in habar laga daba toor laga hor keeno isagay arintaasi u taala macnaheedu ma aha sharci darro samee waxaan ku aqaanay nin adag oo geesiya oo ku dhacle taliyinu khisaadka yeeshaana warqinimo laakiin khisaadka kale laga doonayo wax weeye dadwad inuu dadka isku wado inuu dadka cadaalad sameeyo inuu yaqaan markuu sharciga wax ku xukumayo markuu odayaynayo waa inuu labadaaba yeesho ku qarriqi maayo oranayo laakiin waxaan u jeedaa waxa hore waynu moosnaa in la wada shaqeeyo weey barasaabkaas waa nin reer saaxiba waa taala amaanayo odaynimadiisa iyo wanaagiisa aniguna waa la qaba waxa weeye قفوله وحول يماتا الله قاضي إلهي وحول كل نفس بما كسبت رهينة ولا تسل واسلة وسر أخرى مرنا إلهي بعد دوما حسابية مرنا تاريخ لا حسيسة مرنا الدولة أو حلقة أهيو أي قفك حسيسة وحلا يهمني وحكو قاري كرا وإن قعمها لا يسقب سرا سياسة قبل كوكور مري كريا آدي آد بأمها سنتهين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته